ku soo dhowaada barnaamijka qisooyinka saxaabada suubanaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waxaan horay uga soo sheekaynay qisada bilaal ibnu rabaax allaha ka raali noqdee. maanta waxaan ka hadlaynaa qisada cajiibka ah ee saxaabigii jaliilka ahaa jacfar bin abi daalib. reer bani cabdi manaaf waxaa ka mid ahaa 5 nin oo si aad ah ugu ekaa muuqaalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. 5taas nin ee sida aadka ah ugu ekaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay kala ahaayeen abuu sufyaan bin alxaarit bin cabdilmudalib oo ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ilmo adeero ahaayeen. qutam bin cabbaas oo isna ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ilmo adeero ahaayeen. asayd bin cubayd bin cabdiziid oo ahaa imaamu shaafici awowgiis. xasan bin cali oo ay dhashay gabadhii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee faadumo. jacfar bin abi daalib oo ay walaalo ahaayeen cali bin abi daalib. ma ahayn ekaanshahaasi keliya mid muuqaal ah, hase ahaatee wuxuu jacfar allaha ka raali noqdee uu sidoo kale ku sifaysnaa akhlaaqdii wanaagsanayd ee uu lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam. abuu dhaalib oo ahaa jacfar aabbihiis inkastoo maqaam iyo sharaf weyn ka joogay quraysh, haddana wuxuu ahaa xaal mastuur oo aan lahayn hanti badan iyo iyadoo ay u dheerayd isagoo lahaa carruur badan. abuu dhaalib waxay xaalad adag la soo gudboonaatay sannadkii abaarta darnayd ay ku dhufatay guud ahaan degmooyinkii ay degganaayeen qabaa'ilka quraysh. reer bani haashim waxaa maalintaas ugu dhaqnaa oo xoogaa fiican hanti haystay maxamed bin cabdilaahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aan xilligaas la soo saarin, iyo sidoo kale adeerkiis cabbaas bin cabdulmudalib. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu cabbaas ku yidhi hadalladan: adeer, walaalkaa abaa dhaalib waa carruur badan yahay, dadkiina waxaa isugu darsamay waxaad aragtid oo abaar daran ah iyo xanuunka gaajada ee ina kaxeey oo aynu aadno abuu dhaalib si aynu uga qaadno qaar ka mid ah carruurtiisa. anigu waxaan qaadanayaa mid ka mid ah wiil ka mid wiilashiisa, adiguna waxaad qaadanaysaa wiil kale, sidaas ayaan uga kaafinaynaa. cabbaas wuxuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, khayr iyo samafal ayaad iigu yeertay. kadibna waxay labadoodii aadeen abaa dhaalib waxayna ku yidhaahdeen, waxaan doonaynaa inaan xoogaa kaa khafiifino culayska kaaga yimid carruurtaada si aan kaaga qaadno dhibaatada abaarta ee dadkoo dhan saamaysay. abuu dhaalib wuxuu ku yidhi, haddaad ii dhaaftaan caqiil, sameeya wixii kale ee aad rabtaan. dabadeedna rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaatay cali, cabbaasna wuxuu qaatay jacfar. cali iyo jacfar waxay maalintaas wixii ka dambeeyey ku kala wareegeen guryaha maxamed bin cabdilaahi oo aan weli waxyiga ku soo degin, iyo cabbaas bin cabdulmudalib. cali bin abi dhaalib wuxuu ku soo barbaaray gurigaas. jeer rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu soo saaro diintii hanuunka iyo xaqa wadatay. nasiib wanaag wuxuu cali bin abi dhaalib lambarka koowaad ka galay dhalintii ugu horraysay ee gasha diinta islaamka. dhinaca kale, jacfar isna wuxuu iskala noolaa adeerkiis cabbaas. markuu xoogaa weynaaday wuu soo islaamay, isagoo ka guuray gurigii cabbaas kadib markuu isku filnaaday. jacfar bin abi dhaalib iyo xaaskiisii qiimaha badnayd ee asmaa bintu cumays inay soo islaamaan waxaa sababteeda lahaa abuubakar as-sidiiq allaha ka raali noqdee. waxayna ku beegnayd ka hor intuusan rasuulka calayhi salaatu wasalaam gelin daartii arqam bin arqam ee uu dadka diinta ku bari jiray. wiilkii reer haashimiga ahaa ee dhallinyarada ahaa waa jacfare, iyo gabadhii iyadana dhallinyarada ahayd ee asmaa bintu cumays waxaa islaamidooda awgeed kala soo gudboonaatay cidhiiri iyo dhibaato weyn oo kaga yimid gaaladii quraysheed, taasoo ay la wadaageen muslimiintii kale ee horay u soo islaamay. jacfar iyo asmaa dhibaatooyinkaas dusha ayay u dhigteen oo way u sabreen una dulqaateen. maxaa yeelay waxay si dhab ah u yaqiinsanaayeen in waddada jannada loo maro lagu goglay, laguna hareereeyey waxyaabaha ay nafta dhibsato. sidaa darteed, jacfar bin abi dhaalib wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka fasax qaatay isaga iyo xaaskiisa iyo qaar ka mid ah asxaabta inay u qaxaan dhulka xabashada oo maanta loo yaqaano geeska afrika. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu asxaabta u fasaxay hijradaas isagoo ka murugaysan. waxaa culays weyn ku ahayd oo dhibaysay in asxaabtaas qiimaha badan ee muuminiinta ah lagu qasbo inay diintooda darteed loogu qaxiyo dhul aad u fog iyagoo aanan gelin wax dembi ah, keliya waxaa loogu dhibaateynayo ay tahay inay yidhaahdeen allaah ayaa rabbigeenna ah.
ma aynan haysan muslimiinta maalintaas awood ay isaga caabiyaan hagardaamada iyo dhibaatooyinka kaga imaanayay gaaladii Quraysh. muhaajiriintii saxaabadda ayaa u ambabaxay dhulkii Xabasha, waxaana muhaajiriintaas qiimaha badan hogaaminayay saxaabiga jaliilka ah ee Jacfar bin Abi Daalib. markii ay soo gaareen Xabashada ama Geeska Afrika, waxay durbadiiba magangelyo weydiisteen boqorkii Xabasha ee cadaaladda iyo wanaagga badnaa laguna magacaabayay Najaashi. waxay markii ugu horraysay saxaabadii muhaajiriintii ahaa dareemeen ammaan iyo nabadgelyo buuxda laga soo bilaabo markay soo islaameen. waxay bilaabeen inay si xor ah u muujiyaan cibaadooyinkoodii diiniga ahaa, iyadoo aynan arrintaas kala kulmin wax dhibaato ah. hase ahaatee, gaaladii Quraysh markii ay maqleen in koox ka mid ah muslimiinta ay u qaxeen Xabashada, sidoo kalena ay magangelyo ka heleen boqorkii Xabashada, ayaa waxay isku dayeen sidii ay muslimiintaas ugu soo celin lahaayeen magaalooyinkooda, dabadeedna ay u dili lahaayeen ama ay xabsiga ugu taxaabi lahaayeen. Ummu Salama Allaha ka raali noqdee oo markaas la socotay muhaajiriintii muslimiinta ayaan sheekadan inteeda badan ku soo qaadanaynaa waxyaabihii ay la kulmeen muhaajiriintii Xabashada u hijrooday. iyadoo ka sheekaynaysana waxay tidhi, markaan nimid dhulka Xabashada waxaan la kulannay dad lala jaaro kuwii ugu khayrka badnaa, diinteennii ayay nagu nabadgeliyeen, iyadoo wax dhibaato ah aanan la kulmin ayaan rabbigeen si wacan u caabudnay. Quraysh markay maqleen wararka la xiriira sidiina loo soo dhoweeyey, waxay bilaabeen inay nagu amartaagleeyaan. waxay boqorkii Najaashiga u soo direen 2 nin oo xoog badan, waxayna kala ahaayeen Camar bin al-Caas iyo Cabdullaahi binu Abi Rabiica. waxayna labadaas nin wadeen hadiyado fara badan oo loogu talagalay boqorka Najaashi iyo wadaadada kale ee isaga ka agdhow. waxay Quraysh labadaas nin u soo dardaarantay inay hadiyooyinkaas ay siiyaan wadaadada kiniisadda ka hor intaynan ka hadlin boqorka Najaashi. Ummu Salama oo hadalkeedii sii wadata waxay mar kale tiri, markii labadii nin ay yimaadeen Xabashada waxay la kulmeen wadaadadii Kiristaanka ee u shaqaynayay boqorka, waxayna siiyeen dhammaantood hadiyadihii ay u wadeen. dabadeedna waxay ku yidhaahdeen, waxaa dhulkii boqorka Najaashi soo gaaray qaar ka mid ah dadkeennii madaxa looga jiray, kuwaasoo diintii aabbayaashoodii ay haysteen ka gaaloobay. waxay tafaraaruq geliyeen midnimadii tolkoodii, ee haddaan boqorka kala hadalno kuwaas arrinkooda, fadlan waxaad u sheegtaan inuu innaga faraha inoo soo geliyo isagoo aanan weydiin wax ku saabsan diintooda. ugaasyada iyo madaxda qabiilka ayaa si fiican dadkooda u yaqaana, ugana warqaba diimaha ay rumaysan yihiin. wadaadadii way oggolaadeen codsigoodii oo waxay yidhaahdeen, waa yahay. Ummu Salama ayaa mar kale tiri, waxay Camar iyo saaxiibkiisii aad u dhibsanayeen inuu boqorka Najaashi uu u yeero mid inaga naga mid ah oo uu hadalkiisa u dhagaysto. intaa dabadeed waxay Camar iyo ninkii la socday ay u yimaadeen Najaashi, iyagoo ku wareejiyey hadiyadihii ay ugu talagaleen, waxayna ku yidhaahdeen hadalladan: boqorow, waxaa boqortooyadaada soo magangalay qaar ka mid ah dhallinyaradeenna kuwadooda sharwadayaasha ah. waxay la yimaadeen diin aanan innaga iyo aabbayaasheennaba aqoonin. way ka baxeen diinteennii oo mana aynan qaadeen diintiinnii. innaga waxaana soo diray tolka ay iyaga ka dhasheen, ugaasyadooda oo ay ka mid yihiin aabbayaashoodii, adeeradooda iyo kuwa ay qaraabada yihiin, si aan iyaga gacanta ugu gelinno fitnada iyo dhibaatada ay abuureenna iyaga. ugaasyadaas ayaa naga badiya. boqorkii wuxuu jaleecay wadaadadiisii, waxayna iyagoo hadalkii u riyaaqsan yidhaahdeen, run bay sheegeen, boqorow, tolkooda ayaa naga badiya, ee iyaga dib ugu celi, iyagay jirtaa waxay ka yeelayaan. boqorkii Najaashi oo aad uga carooday hadalkii wadaadadii ka soo yeeray ayaa ku yidhi, maya wallaahi, marnaba lagama yaabo inaan dadkaas dalkooda dib ugu musaafuriyo jeer aan u yeero oo aan waxa uga weydiiyo waxa laga sheegayo. haddii labadaas nin waxay ka sheegeen ay sax noqoto, iyagaan gacanta u gelinayaa. hase ahaatee, waxaa laga sheegayo waxaan ahayn hadday soo baxaan waan magangelinayaa oo waan wanaajin doonaa inta ay ila joogaan. mar kale Ummu Salama waxay tidhi, intaa kadib wuxuu boqorkii Najaashi naga codsaday inaan la kulanno. ka hor la kulanka boqorka ayaa inaga dhexdeennii is aragnay. qaarkeen ayaa qaarka kale ku yidhi, boqorka ayaa su'aal idinka weydiin doona diinteena ee aynu si cad ugu sheegno diinta aan rumaysanahay, waana inuu noo hadlaa Jacfar bin Abi Daalib, yuusan hadlin qof kale oo aan isaga ahayn. Ummu Salama oo sii wadata hadalka misna waxay tidhi, waxaan durbadiiba u dareernay
boqorkii Najaashi. Markaan soo gaarnay goobtii kulanka, waxaan aragnay boqorkii oo ay weheliyaan wadaadadiisii oo ay ka fadhiyaan dhinacyada midigta iyo bidixda. Waxay soo gashadeen dhar khaas ah, kutubadoodii ayay ishordhigeen. Waxaa sidoo kale goobtii kulanka fadhiyey ergadii Quraysh ee Camar bin Caas iyo Cabdilaahi binu Abi Rabiica. boqorkii ayaa xaggeenii soo eegay, wuxuuna nagu yidhi, waa maxay diinta aad nagu soo kordhiseen oo aad awgeed uga baxdeen diintii ay tolkiinnii haysteen, isla mar ahaantaana aynan u qaadanin diinteenna iyo mid kale toona? Jacfar oo su'aashaas ka jawaabaya ayaa yidhi, boqorow, waxaynu ahayn kuwo jaahili ah, waxaynu caabudi jirnay asnaamta, bakhtigana waynu quudan jirnay, xumaha ayaynu samayn jirnay, oo qaraabo goys ayaynu ahayn, jaarka iyo deriska ayaan dhibaatayn jirnay. Keena awoodda leh wuxuu ku tuman jiray kan tabarta daran. Sidaas ayuu xaalkeena ahaa jeer uu Allah subxaana wa tacaala naga soo dhex soo saaro rasuul aynu naqaanno abtirkiisa, runtiisa, ammaanadiisa iyo dhowrsanaantiisaba. Wuxuu noogu yeedhay rumaynta Allah iyo inaan isaga keliya aan caabudno, isla markaasna aan faraha kala baxno wixii aynu innaga iyo aabbayaasheennaba ay ku sugnaayeen oo ah cibaadada asnaamta. Wuxuu rasuulkaasna faray run sheega, gudashada ammaanada, xiriirinta qaraabada, deriska oo la wanaajiyo. Wuxuu naga reebay xumaha oo idil iyo been abuurashada, in la cuno hantida ay leeyihiin agoonta iyo gabdhaha dhowrsoon oo lagu tuuro xumaan. Wuxuu kaloona faray inaan Allah subxaana wa tacaala keliya aan caabudno oo aanan u shariik yeelin, inaan oogno salaadda, bixinno sakada iyo inaan soonno bisha Ramadaan. Waan rumaynay oo waxaynu si dhab u qaadanay wixii uu xagga Allah kala yimid, xalaashii ayaynu xalaalsanay, oo wuxuu naga reebayna xaaraan ayaan ka dhiganay. Intaa dabadeed boqorow, waxay tolkeennii bilaabeen inay nala colaytamaan, xanuun daran ayayna mariyeen si ay nooga celiyaan diinteenna oo ay noo celiyaan cibaadadii asnaamta. Markii si daran ay noo dulmeen oo ay noo dhibaateeyeen, ayaan u soo qaxnay dhulkiina. Adiga ayaan dadkii kale kaa dooranay, waxaynu doorbidnay la deriskaaga, waxaan maciin badnay inaan agtaadana lagu dhibaataynin. Ummu Salama waxay tidhi, boqorkii Najaashi wuxuu jaleecay oo eegay Jacfar bin Abi Daalib, wuxuuna ku yidhi, ma jiraan wax tilmaamaya wixii uu nebigiina kala yimid xagga Allah? Wuxuuna Jacfar yidhi, haa. Dabadeedna wuxuu boqorkii ku dul akhriyey suuradda Maryama, kaafhaa yaa caynsaad. Allah ayaa og macnaha xuruuf ahaan, waa sheegid naxariista rabbigaa u sheegayo addoonkiisa Sakariya mar uu u dhawaaqayay rabbigiisa dhawaaq qarsoodi ah, yidhina, Rabbiyow, anigu waan tabar yaraaday, madaxayguna wuxuu la huray cirro, mana ahayn, Rabbiyow, baryadaada mid ku khasaara. Wuu waday jeer uu Jacfar ka dhammeeyey dhammaan suuraddii Maryama oo ka kooban 98 aayadood. Waxay mar kale Ummu Salama tiri, waxaa ooyey boqorkii Najaashi, ilmadii ka soo daadanaysay ayaa garkiisii oo dhan qoysay. Wadaadadiisiina way ooyeen markii ay maqleen aayadihii xaqa ahaa ee laabtoodii gilgilay. Kadibna wuxuu boqorkii nagu yidhi, diintii lagu soo dejiyey nebigiina iyo diinta lagu soo diray nebi Ciise waxay ka yimaadeen hal meel. Intaa dabadeed wuxuu eegay Camar iyo saaxiibkiisa, wuxuuna ku yidhi, iska taga, wallaahi ayaan ku dhaartaye inaanan kuwan gacanta idiin gelinaynin. Ummu Salama waxay tidhi, markii aan ka dhaqaaqnay fadhigii boqorka Najaashi, waxaana handaday oo noo goodiyey Camar bin Caas, wuxuuna saaxiibkiis ku yidhi, waxaan berito u tegayaa boqorka anigoo u sheegi doono hadal boqorka ku abuura inuu idin caroodo. Cabdulaahi binu Abi Rabiica ayaa ku yidhi Camar, ha samaynin sidaas, inkastoo ayna khilaafeen, haddana waa xigtadeennii. Camar ayaa mar kale ugu jawaabay, adiga faraha iga qaad, wallaahi inaan boqorka u sheegi doono inay nebi Ciise ka aaminsan yihiin inuu yahay addoon. Maalintii dambe markii la gaaray ayaa Camar wuxuu u galay boqorkii Najaashi, wuxuuna ku yidhi, boqorow, kuwan aad magangelyada siisay waxay ku sheegayaan Ciise ina Maryama hadal aad u weyn. Sidaas darteed intaad u yeertid waxaad weyddiisaa waxa ay Ciise ka aaminsan yihiin. Waxay tidhi Ummu Salama, markaan arrinkaas ogaanay, waxaa nagu soo kordhay murugo iyo tiiraanyo aanan horay noo qabsan. Waxaynu isnidhi, hadduu boqorka wax naga su'aalo nebi Ciise calayhi salaam, maxaynu nidhaahnaa? Waxaan isla garanay inay habboon tahay inaan su'aashaas aan uga jawaabno oraahdii uu Allah ka yidhi Ciise, innagoo wax kale aanan ku siyaadinin. Dabadeedna wixii markaas kadib dhacayo ha dhaceen. Waxaan mar kale isla garannay inuu noo hadlo Jacfar bin Abi Daalib.
markaan hor nimid boqorkii najaashi wuxuuna weydiiyey waxa aan ka aaminsannahay ciise ina maryam wuxuuna jacfar ku yidhi boqorka nebi ciise waxaan ka leenahay oo keliya waa wixii uu nooga warramay nebigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam boqorkii ayaa raaciyey su'aashaan waa maxay waxaasi jacfar oo ka jawaab bixinaya nebi ciise calayhi salaam ayaa yidhi waa addoonkii alle iyo rasuulkiisa markii uu boqorkii najaashi maqlay hadalkaasi wuxuu gacanta ku garaacay dhulka wuxuuna yidhi ma jiraan wax ay ku kala duwan yihiin nebi ciise calayhi salaam iyo nebigiinna sawaxan iyo buuq ayay isku dareen wadaadadii kirishtaanka ee ag fadhiyey boqorka iyagoo caro ka muujiyey hadalka ka soo yeeray boqorkoodii boqorkii najaashi oo si weyn ugu qanacsan sharaxaaddii muslimiinta ay ka bixiyeen diintoodii ayaa ku yidhi socda oo waxaad tihiin kuwa la nabadgeliyey qofkii idin caaya waa la ganaaxayaa qofkii idin dhibaateeyana waa la ciqaabayaa walaahi ayaan ku dhaartaye kuma doorsanayo in la isiiyo buur dahab ah oo markaasi qof idinka mid ah ay soo gaarto dhibaato kadibna wuxuu boqorka eegay ergadii quraysh ee camar iyo saaxiibkiis isagoo ku yidhi ha loo celiyo labadan nin hadayadahoodii waayo uma baahnin ummu salama waxay tidhi camar iyo saaxiibkiis oo qoomamaynaya ayaa dib dalkoodii ugu laabtay hase ahaatee innaga waxaan si maamuus leh u sii joognay dhulkii xabasha saxaabigii jaliilka ahaa ee jacfar bin abi dhaalib iyo afadiisii asmaa waxay geeska afrika si nabad ah ugu sugnaayeen 10 sanno hase ahaatee sannadkii 7 ee hijriga ayaa waxay iyaga iyo koox saxaabada ka mid ah ku soo laabteen magaalada madiina imaanshihii jacfar iyo muhaajiriintii ka timid xabasha iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaasi ka soo laabtay duulimaadkii khaybar ayaa wada kulmay waana kadib markii la furtay khaybar suubanaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam si aan la tilmaami karin ayuu ugu farxay imaanshaha jacfar intuu laabtiisii sharafta badnayd ku soo dumay jacfar ayaa wuxuu ku yidhi ma waxaynu ku faraxnaa furashada khaybar mise imaanshaha jacfar farxaddaasi uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka muujiyey imaanshaha jacfar kama yarayn tan guud ahaan muslimiinta gaar ahaan kuwii masaakiinta ahaa ay ugu farxeen imaanshaha jacfar iyo asxaabta kale maxaa yeelay jacfar wuxuu aad u xidhiirin jiray una dhaqaalayn jiray masaakiinta muslimiinta ee waxna aan haysan waxayna taageeradiisa masaakiinta ay keentay in loogu magac daro aabbihii masaakiinta abuu hurayra allaha ka raali noqdee oo arrinkan ka sheekaynaya ayaa yidhi haddaynu ahayn jamaacadda masaakiinta jacfar wuxuu noo ahaa qofka noogu roon dadka gurigiisa ayuu intuu noo kaxeeyo ayuuna soo siin jiray waxa yaala oo cunto ah joogistii jacfar ee uu dunida saarnaa ayaa soo yaraatay sannadkii 8 hijriga bilowgeedii wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam diyaariyey ciidan la dagaalama ciidamada ruum ee ku sugnaa gobolka shaam wuxuuna ciidankii muslimiintii madax uga dhigay sayd binu xaarita wuxuuna yidhi haddii la dilo sayd ama la dhaawaco waxaa amiir noqonaya jacfar binu abi dhaalib jacfar haddii la dilo ama la dhaawaco waxaa amiir noqonaya cabdulaahi binu rawaaxa cabdulaahi binu rawaaxa haddii la dilo ama la dhaawaco markaasi muslimiinta ha iska dhex doorteen mid iyaga ka mid ah muslimiintii markii ay gaareen muta oo ah tuulo ku taalla urdun ee shaam ayaa muslimiintii waxay ogaadeen inay ciidamada roomaanka ay diyaariyeen ciidamo gaaraya 100,000 oo qof 100,000 oo ay taageerayaan 100,000 kale oo isugu jira gaalada carbeed ee ka tirsan qabiilooyinka lakham judaam iyo qudhaaca iyo kuwo kale oo badan halka ciidamada muslimiinta ay gaarayeen oo keliya 3,000 ciidan 3,000 oo ciidan ayaa wuxuu la dagaalamayaa 200 oo kun oo ciidan waa 2 ciidan oo aan isku aadin hase ahaatee wax yar kadib waxaa bilowday dagaalkii ay dagaalamayeen ciidamada muslimiintii iyo kuwii kale ee gaalada ahaa hogaamiyihii ciidamada muslimiinta sayd binu xaarita ayaa jiidda hore ee dagaalka ku naf waayey sidiina ayuu ku shahiiday allena uga baryaynaa inuu u naxariisto dhinaca kale waxaa durbadiiba hoggaankii si geesinimo ku jirta ula wareegay saxaabiga aan ka sheekaynayno ee jacfar binu abi dhaalib isagoo ka soo degay faraskiisii si xamaasad weyn ku jirta ayuu dagaalkii u galay waxaa keliya ee u muuqanayay waxay ahayd jannada iyo bilicdeeda ballaaran neecowdeeda iyo biyaheeda macaan xuurulciinteeda loo dhammeeyey quruxda webiyadeeda kala nooc ah intaasoo ay sii siyaadiso rajada weyn ee uu ku qabay raalla ahaanshaha rabbi taasoo uusan wax kale ku doorsanaynin
wuxuu tiriyey tix gabay ah oo uu kaga hadlayay sida loo xanuujin doono ciidamada Roomaanka ee qarka u istaagan in la ciribtiro. wacdarro weyn ayuu Jacfar goobtii dagaalka ka muujiyey, isagoo sita seeftiisa wuxuu dhex jiiray ciidankii Roomaanka, isagoo kii ka soo horbaxaba uu qoorta ugu dheereynayay seeftiisa ayaa markii dambe waxaa laga dhaacaway oo laga gooyey gacantiisii midig, calankii ayuu misna ku qaaday gacantiisii bidix, mar kale ayaa misna laga dhaawacay oo ay goday gacantii bidix, kadibna laabtiisii ayuu damcay inuu calanka ku qaado, hase ahaatee dhufashadii saddexaad oo darnayd ayaa jidhkiisa laba dhinac kala dhigtay. intaa kadib waxaa calankii la wareegay geesigii saddexaad ee Cabdillaahi binu Rawaaxa ilaa isna laga dilo oo uu ka shahiido. dhammaantood Allaha u naxariisto kana raali noqdo, waxay dhinteen iyagoo u taagan difaacidda diinta Allah subxaana wa tacaala. rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku sugan magaalada Madiina ayaa waxaa gaaray khabar degdeg ah waxyi ahaan kuna saabsan geeridii hoggaamiyaashiisii qiimaha badnaa, si daran oo xanuun badan oo aan la tilmaami karin ayuu geeridooda uga tiiraanyooday. wuxuu aaday guriga Jacfar oo ay ilmo adeero ahaayeen. guriga waxaa joogtay afadiisii qiimaha badnayd ee Asmaa binti Umays oo ku rajo weynayd ninkeedii oo nabad qaba inuu ku soo laabto gurigiisa iyo reerkiisa. diyaar garow fiican ayay arrinkaa ugu talo gashay, cunto macaan iyo carruurtii oo ay u qubaysay oo ay qurxisay si ay si wada jir ah ay ugu qaabilaan aabbahoodii ay sida daran u jeclaayeen. Asmaa oo dareenkeeda maalintaas cabbiraysa ayaa waxay tidhi markii uu noo yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waxaan wejigiisa qiimaha badnaa ka akhristay murugo weyn, waxaa naftaydii gashay cabsi, hase ahaatee ma aanan jeclaysan inaan weyddiiyo su'aalo ku saabsan arrinta ninkayga Jacfar, cabsi awgeed aan ka qabo inaan maqlo war aan i farax gelin. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuuna salaamay, wuxuuna intaa kadib igu yidhi, waxaad iigu yeertaa carruurta Jacfar. waana u yeeray. carruurtii oo faraxsan ayaa xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo cararay, mid walba oo carruurta ka mid ah wuxuu doonayey inuu ku dhago ama qabsado jidhka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. dhinaca kale, rasuulka calayhi salaatu wasalaam isna wuxuu ku soo foorarsaday carruurtii, isagoo dhunkanaya isla mar ahaantaasna ay indhihiisii sharafta badnaa ay ilmeynayaan. waxaan ku idhi, hooyaday iyo aabbahay ha lagu furtee, maxaad la oonaysaa? ma Jacfar iyo labadiisii saaxiib ayaa dhibaato soo gaartay? wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi, haa, oo maanta ayay shahiideen. markay hadalkaasi uu yidhiba waxay farxaddii iyo muusoodkii isu beddeshay naxdin iyo walbahaar. carruurtii yaraa ee faraxsanaa markay maqleen oohinta hooyadood waxaa ka soo haray degganaansho lagu hareeyey tiiraanyo daran. hase ahaatee rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu iska tegey, isagoo iska masaxaya ilmadii buuxisay labadiisii indhood, wuxuuna lahaa wakhtigaas iyada ah hadallo macnihiisu ahaa, Allahayow waxaad Jacfar qoyskan ugu baddashaa wax khayr badan, Allahayow qoyska Jacfar baddal wanaagsan sii. kadibna wuxuu yidhi, waxaan jannada ku arkay Jacfar oo leh 2 garbood oo dhiig leh. haa, Allah subxaana wa tacaala waa mudan yahay inuu ku abaaliyo Jacfar darajadaas qiimaha badan. waxaana halkaas ku dhammaatay sheekadii saxaabigii jaliilka ahaa ee Jacfar binu Abi Daalib oo aan Allah uga baryayno inuu u naxariisto kana raali noqdo. aamiin aamiin aamiin.